ajnabi inuu maanta haysto qof muwaadin ah oo maxkamadii fasaxday waa dulmi. qolada kale ee fiyusraadiska dhahaysa waa la soo daayay idinka laftiilu ilaahay ka cabsada oo waxaan jiri dadka ha u sheegina. dadku aad bay u jecel yihiin in walaalka la soo daayo, run bay idiin malaynayaan. hadhihina been ha faafinina idinkuna, hadalka hubsada. in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa laga rabaa, caddayso hadalka. cabdimaalik muuse coldoon miyaa la soo daayey oo waa xor buu noqday mise weli wuu xidhan yahay? labada arrimood baa aad ugu jirta social mediaha, khaasatan youtube-ka. youtubero badan baa waxay leeyihiin cabdimaalik muuse coldoon waa la sii daayey. waxay soo dhigayaan sawirro uu gaari saaran yahay ama uu hadlayo. qaar baa waxay leeyihiin saxaafad buu qabtay, qaarna waxay leeyihiin maya weli wuu xidhan yahay. maxkamaddu way fasaxday laakiin weli wuu xidhan yahay, lama soo daynin ayay leeyihiin. labadaa war midkee run ah midkeese been ah? xaqiiqadu waa sidee? muxuu u xidhan yahay oo sababta weli uu usii xidhan yahay maxay tahay? waxyaaba badan baan falanqaynaynaa. waxaan idinka codsanayaa laygta, sheerta. dadkii horey noola soo socday sameeya Sakina Sky TV iyo channelkeena kale ee Pelican TV iyo kan channelkeena kale ee Warqad channel. saddexdaba waxaad ku samaysaan insha Allah soo follow gareeya, subscribe haddaad aadan horey noola soconin subscribe garee. haddii kale laygta iyo sheerta nagula dadaal. commentigana waxay noo tahay dhiirigelin ayay noo tahay commentigina iyo inaad wax noo soo qortaan. walaalayaal, cabdimaalik muuse coldoon waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala isaga iyo intii mu'miniin iyo muslimiin ahee xidhan ee dulmi ku jiraba ilaahay dulmiga inuu ka dulqaado. ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed meel kasta oo joogto meelo badan ayay ku dulman tahay, xabsiyo badan ayay ku dulman tahay, meelo badan ayay dulmi ka soo gaarayaa. ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu ilaahay ka dulqaado dulmiga iyo xadgudubka maalin walba lagula kacayo aqoon-yahankoodii, indheergaradkoodii, caawiyahoodii lagula kacayo inuu ilaahay ka dulqaado. khaasatan xanuunku wuxuu ka sii badan yahay meel ay gobol soomaaliyeed ahoo, dhul soomaaliyeed ahoo, ciid soomaaliyeed ahoo uu qofkii ku dhashay uuna kelimad ka dhihi karin, oo xorriyatul qowl ka jirin, oo hadal yar hadduu dhaho oo maanta saxaafad yar uu la hadlo halis uu gelayo. cabdimaalik muuse coldoon wuxuu xidhan yahay 7 bilood. bishii 8aad baa la qabtay, maantana waxaynu maraynaa bishii 2aad. waxaa la qabtay bishii 8aad sanadkii 2021. wuxuu maantana aynu maraynaa sanadkii 2022 bishii 2aad February ayaan maraynaa oo taariikh 4 ah. intaa cabdimaalik 7 bilood ayuu xidhan yahay. 7 bilood ma uuna helin cadaalad sax ah iyo maxkamad sax ah ma uuna helin. waa la eedeeyey, eedooyin ilaa 5 baa lagu soo eedeeyey oo hadda ka hor aan ka soo hadlay oo kilib ka soo sameeyey. eedihii intii la keeno maxkamadda in lagu soo caddeeyo oo ninka ama maxkamaddu xukunta xabsi ku xukunto ama siidayn iyo xorriyad intii wixii lagu waayay inay ku xukuntay ahayd. wareejin iyo daba wareejin iyo dee nin dhargey talaha weynin, waxay soomaalidu dhihi jireen gaal dhargey talaha weydiinin bay dhihi jireen. nin dharagsan oo meelaha intuu iska joogo iska maaragtay raaxaysanaya, qofkii ka agbaxe ee dhibaato wax uu u maleeyo u geysta isaga wax uu u arkay inay liddi ku tahay, liintuu cabbayaa saaxiib. cadaaladda ha ka hadlin, haddaad ka hadasha liintaad cabbi. marka cabdimaalik muuse coldoon sida saxda ah shalay maxkamad ayaa la keenay. waa akhbaarta ugu saxsanaynu helayno, innagu waddankii ma joogno. waxaa la geeyey shalay maxkamad. waxaa hadlay nimankii soo dacweeyey qodobaday u cuskadeen dacwada cabdimaalik coldoon ama cabdimaalik muuse coldoon qodobaday u codsadeen ayay soo dhigeen. maxkamaddu markay fiirisay looyarkii cabdimaaligna uu hadlay, qodobadii qayb waxay noqotay qayb hadda ka hor lagu soo eedeeyey oo muddo ka hor doorarkii hore la xidhi jiray 1 sano iyo dhowrka sano uu ahaa. mararkii hore wixii lagu soo dacweeyey qaar ka mid ah bay ahaayeen, sida qoraallo iyo faafiyaa iyo sheekooyinka noocaas ahaa.
qodobada qaarkoodna qodobo qof bini aadam ah lagu soo dacweyn karo oo muwaadin ah oo xorriyatu qowl qaba mayna ahayn. adigu waxay maxkamaddii tiri wax ninkaa maanta aan ku hayno oon ku sii haysanno ood ku haysaan qoladiinnan soo xidhatayay ma jirto. waa lagu kala baxay. cabdimaalik 5tii qodob ee lagu soo eedeeyey kayfiye walbay noqoto baatil bay noqotay. maxkamadduna way tuurtay, wax kama jiraan bay ku tilmaamtay. halkaa waxaa la rabay in cabdimaalik intuu bustihiisii iyo dharkiisii qaatiyo weelkiisii gurigiisii inuu dheelmado sida lagu yaqaano maxkamadaha adduunka ama waddanka xataa somalilan iyo dalka somalilan xataa lagu yaqaanay. laakiin cabdimaalik dib waxaa loogu celiyey sida raajixa xabsiyadii baa dib loogu celiyey. asbaabaha loogu celiyey xabsiga dhowr su-aalood ama dadku waxay ka bixinayaan dhowr fikradood bay ka bixinayaan, ilaa 4 fikradood 3 fikradood baa laga bixinayaa. fikradda koowaad waxay leeyihiin waxaynu maalmahan arkaynay social mediaha dad qabaa'il ah oo hadlaya oo faamilkii uu ka dhashay cabdimaalik ah oo aad u hanjabayay. qabaa'illo kale oy ku tuhmayeen cabdimaalik inay haystaan oo dowladnimo shaati dowladeed u adeegsadeenna way jireen. arrintaas iyo xasaasiyaddaasaa lagu baabi'inayaa oo hadda haddii la soo daayo oo horay laga fasaxo waxaa laga cabsanayaa inay qabaa'ishii isku jabaan ama dhibaata halkaa ka dhacdo bay dowladdu xeerinaysaa. marka ayadoo siyaasad isticmaalaysa bal cabdimaalik xooga aan yar hayno hadegta xaaladdu maxkamaddii inay cabdimaalik u hiilisay ha la arko, xaaladda ha la yardejiyo, qabaa'ishii meesha ha ka baxdo ayay leeyihiin. waa fikirka aad mooddo inuu ugu macquulsan yahay oo xataa dhinac ahaan markii dowladda mas-uuliyadda saaran laga fiiriyo dad qabaa'il oo isku dhacayo oo maxas oo wax magaratay ah oo laga yaaba inay dee ay qaado xamaasaddu qaado. runtii xaqiiqatan waxaan dhihi lahaa dowladdu macnaha waxaan dhihi karnaa inay dadka kala dejiso maalin iyo 2 maalmood wax weyn ma aha. arrinta labaad waxay leeyihiin maahee naagtii iska lahayd iskuulka abaarso ee nigeriyaanka ahayd ayaa ka dambaysa in la sii day waayo cabdimaalik muuse coldoon oo waxay leedahay aniga dhib buu igu yahay ninkan ha la iga hayo, siday dooniba ha noqotay ha la haya ninkan. dadka qaarkood saasay sheegayaan. waana hawl la rumaysan karo, waa arrin la rumaysan karo, waana arrin baatil ah. runtii qof nigeriyaan ahoo waddanka nigeria ka imaaday inuu ku xukumo uu ku dhibaateeyo muwaadin soomaaliyeed waddankiisii, dalkiisii, caradiisii, ciiddiisii, meesha uu wax ku noqday uu wax ku ahaa inay ku dhibaatayso oo xataa maxkamaddii ugu weynay dalkiisa markay xukuntay inuu yahay qofkaasi qof aan dhibaato ummaddiisa u geysanin, dulmi lagu haystay markay xukuntay inuu qof ajnabi ah qofkii muwaadinka ahaa uu xorriyaddiisii u diido. runtii xaqiiqatan dee dowladnimadkii bay sharaf xumi ku tahay, muwaadinnimadkii bay sharaf xumanimo ku tahay, dalnimadkii bay sharafnimo xumo ku tahay, soomaalinimadkii bay sharaf xumi ku tahay. waxay ku tahay xataa kan kuugu samaynaya arrintaasaa ku liidi berri ka maalin oo dhihi waddankoodaan ku xukumi jirnay ma waddan kale nagu xukumayaan, ma waddan kale wax ka noqon karaan oo kugu liidi meel kastood adduunka ka joogto. dadka qaarkood marka arrintaas haday sheegayaan waa arrin la yaab leh. runta waa arrinta ugu fool xun ee qodobada xataa soo socda ugu fool xun. qof aan waddankaagii ahayn oo waddanka kula lahayn oon soomaali ahayn oo ajnabi ah inuu dalkaagii maxkamaddii markii intii dulmi lagugu soo xidhay 7 bilood lagugu haystay maxkamaddii ku fasaxday inuu qof ajnabi ah kugu dheganaadaa iyo waa damiir xumo, waana mid laga ilmeeyo oo laga ooyo qof kasta oo soomaali ana uu ka xumaado wey. waa midda labaad. midda saddexaad waxaa haysta qolyihii maamulka ahay ee madaxweynaha iyo qolyihii maamulka ahay ee markii horeba haystay baa haysta oo waxay leeyihiin maxkamaddu qaabkay wax u xukuntay ay dacwadanadii u tuurtay u ilqaysay
kumaanaan qancin ee weli ninkayaana laga sii daynaa ha naloo hayo. waxaa ficnay qolyahaas waa dowladda ayagaa waddanka xukuma, xaq bay u leeyihiin, awoodna way u leeyihiin. dabcan xaq bay u leeyihiin markaa ku leeyahay maaha xaq oo dastuuri a ma dhahayo. xaq dastuuri ah waa la sheegay oo waa la caddeeyey uma leh, laakiin xaq bay u leeyihiin inay dhahaan wixii aanu dacwooyinkanagii khadka laga saaray khalad bay ahayd inay dhahaan xaq bay u leeyihiin. laakiin maxay xaq ayna u lahayn inay xabsiga ku celiyaan? xaq uma leh. maxkamaddu ha fasaxdo, gurigiisii ha tago, dacwad kale ha soo oogaan. sida ay leeyihiin dadka sharci aqoodka ah, dacwad kale ha soo oogeen, dacwad kale ha sheegteen baa sax ah. kadibna isagoo xora ha istifaaco, looyaradiisii isagoo wada socda ha istifaacaan. laakiin taa xataa hadday sii haysato dowladdu, waa dad dowladdii waddanka weeyaan. xataa hadday gardaran yihiin waxaan dhihi karnaa waa dowladdii dalka haysatay. laakiin qof ajinabi ah, ajinabi inuu maanta haysto qof muwaadin ah oo maxkamaddii fasaxday waa dulmi. qolada kale ee fiyusraadiska ee dhahaysa waa la soo daayay, idinka laftiinu ilaahay ka cabsada oo waxaan jirin dadka ha u sheegina. dadku aad bay u jecel yihiin in walaalka la soo daayo, run bay idiin malaynayaan. ha dhihina been ha faafinina idinkuna, hadalka hubsada. in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa lagaa rabaa, caddayso hadalka. runtii xaqiiqatan anoo intaasoo war maqlay baana ka hadlin ilaa shalay, markaan wararkii xuraamay qaabkii ugu cadaaladda ugu dhoweyd aan isiri baan uga hadlay. marka cabdimaalik xaalkiisu halkaasuu maray.